حي على الصلاة. daawadayaal waxaanu ku sugannahay xaramka barakaysan ee magaalada Maka halkaasi oo maalmihii ugu dambeysay aan u joognay ama aan u joogay si aan u soo guto umrada hadaba cibaadada umrada siyaabaha loo guto iyo waliba waxyaabaha looga baahan yahay qofka muslimka ah ayaa waxaan doonayaa inaan ka wareysto Sheekh Axmed Maki oo kamid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee ku sugan magaalada barakaysan ee Maka Axmed marka hore soo dhawow dad badan oo muslimiin ah waxa laga yaabaa in aanay fikrad badan ka haysan sida loo guto umrada iyo waliba waxyaabaha qofka muslimka ah ee doonaya inuu umraysto looga baahan yahay iyo waxyaabaha ka reeban bal hadaba sidee ayay tahay in uu qofka muslimka ee doonaya inuu umraysto uu umraysto bismillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliiman kathiira wala horta Khalid waxaan ku leeyahay horta ku soo dhawow bilaad al-Haramayn al-Sharifayn sharaf weyn bay noo tahay inaan kugu qaabilo xaramkan oo aad halkan acmaash ku gudato su-aasha wala la weydiisay waa acmaasha umrada qaabka loo sameeyo umradu waxay kamid tahay cibaadaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu nimceeyay dadka muslimiinta ah oo runtii qofku uu ka helayo dambi dhaaf aakhiro iyo dheef adduunyada Nabigu sallallahu alayhi wa sallam xadiiska Abu Hurayra Bukhari ku jiray inoo sheegay Nabigu sallallahu alayhi wa sallam xadiiska saxiixa wuxuu inoogu sheegay in acmaasha umradu qofku markuu la yimaado in dunuubtiisa dhaafay wuxuu ka Nabigu sallallahu alayhi wa sallam xadiis kale inoogu sheegay in qofku hadduu umrada badiyo in risqiisu badanayo oo faqriga ay ka kaxaynayso marka waa umrada qofka muuminka ah markuu doonayo inuu guto qodobka koowaad ee looga baahan yahay qofku waa inuu ka soo xidho meelihii nabigeena sallallahu alayhi wa sallam inoogu tilmaamay xadiiska saxiixa taasoo afarta jiha meeshii ahayd Dhul Xulayfa iyo meeshii Juhfa iyo jihadii ahayd qarn al-Manaazil iyo meeshii Yalam ahayd afarta jiho qofku ayuu ka soo xidhanaya markuu doonayo umro haddii uu qofku qaaliyan waana say waaqi imika yahay diyaarad ku soo marayna inta badan daaqimka diyaaradda saaran ayaa ku baraarujiya dadka muctamiriinta ah qofka muctamirka ah waxa looga baahan yahay rag iyo dumarba marka uu wadankiisa ka soo baxayo gaar ahaan ragga waxa looga baahan yahay in uu soo qaato labadan dharkan cad ee maradan labadan go inuu soo qaato dumarku iyagoo ka duwan dharkooda caadiga ah bay ku imanayaan qofku marka uu yimaado miiqaadka la gaaro wuxuu ku xiranayaa labbayk allahumma bi umrah niyadana uu gelinayaa inama al-a'maalu binniyat qofku markuu sidaas sameeyo waxa uu galay acmaashii nuskii umradii buu galay waxa ka noqonaya umuur badan baa xaraan ka noqonaysa oo aan ahayn in ay tahay inuu iska ilaaliyo sida inuu qofku marsado diibkii iyo cadarkii sidoo kale inuu timihiisa xiro inuu cidiyihiisa guro inuu qofku hadduu reerkiisa wato inuu ehelkiisa u tago inuu ugaadhso waxyaalo badan baa xaraan ka ah qofku hadduu miiqaadkii soo maro oo ay dhacdo inuu miiqaadkii sooba dhaafay isagoo aan garanayna waxa ku waajibay inuu miiqaadkii ku noqdo ama intuu umradii sameeyo inuu kafaaro la yimaado kafaaraduna waa inuu neef meel ku qalo Maka oo masaakiinta Maka uu qaybiyo qofku markuu inta la yimaado wuxuu imanayaa kaacbaduna aadaab iyo shuruudo badan bay u baahan tahay shardigeedu koobaad waxa weeye qofku inuu daahir yahay oo soo weyso qaato markuu qofku soo weyso qaato kaacbada 7 goor baa lagu dawaafaya qofku wuxuu ka bilaabayaa xajar aswadka ayuu ka bilaabayaa bismillaahi allahu akbar booniya gacanta midig buu ku salaamaya kadibna qofku wuxuu banaynayaa gacantiisa midig ayuu banaynayaa sida sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugnaatay 7 goor markuu saa u soo wareego meesha xajarka aswadka iyo u dhaxaysa rukun yamaaniga wuxuu oranayaa ducadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ka soo aroortay ee ahayd rabbana aatina fid dunya hasana wa fil aakhirati hasanatan wa qina adhaban markuu qofku 7 goor dhameeyo wuxuu la imanayaa labadii ragcadood ee sunnada ah ee nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo jireeyay oo khalfa maqaami ibraahim uu ku tukado markuu labada ragcadood tukado wuxuu u jihaysanaya uu tagayaa xagii Safa iyo Marwa halkaas ka bilaabaya acmaashii saciga kadib marka aayadii quraanka in Safa wal Marwa akhriyaya iyo adkaartii nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugnaatay ee ahayd rabbana aatina fid dunya hasana wa fil aakhirati hasana saddex goor buu ku celiyay kadibna qofku Marwa uu gudbaya markuu Safa ka bilaabo Marwa markuu tago waa mid bay noqonaysaa markuu soo noqdo laba ay noqonaysaa qofku markuu sidaa 7 goor u sameeyo waxa uu ku soo khatimayaa oo laga rabaa inuu qofkii aw timaha xiirto rag iyo dumarba marka acmaashii umradu kabigooda intaas ku soo koobantay waa arkaanta afarta qofku inuu meeshii ka soo xidho miiqaadka ahayd inuu dawaaf la yimaado inuu saci la yimaado bayna Safa wal Marwa iyo inuu xiirto inta hadduu qofku la yimaado uu xiiranayo uu xalaaloobaya qof caadi noqonaya marka Khalid walaal intaas ayuu la imanaya qofku acmaasha way waxaad dadka Soomaalida ah ee ku dhageysanaya sawir ka siisaa marka la leeyahay qofku waxa uu soconayaa
inta u dhaxaysa Safa iyo Marwa goobtaas Safa iyo Marwa goob caynkeeya inta badan waxa la yiraahdaa waa laba buurood dhexdooda si fiican buuraha waynu naqaanaa Soomaalida dhexdeeda ka jira amaba ku yaala waa buuro rafaad badan oo maaragtay dhagaxaan iyo qofka muslimka ah aanu cibaado iska daayay aanu kuba socon karin si fiican marka hadda xaramka sidee baa loogu diyaariyay buurahaasi Safa iyo Marwa u dhaxeeya Khalid horta su'aasheedu waa su'aal aad muhiim ah dadkuna qof marka aan hore meeshan u iman wuxuu suuraysanaya amba dihnigiisa ku sii jirta inuu buuro dhex cararayo xaqiiqatan sidaa ma aha dadka yimidinay arkeen waa dhismo caadi oo dhisan oo Khalid siyaad adigu aragtay waa buuro caadi ah oo dhul la dhisay oo fooqa oo 4 dabaqa oo kii ku soo hagaaga marka uu ku saceeyo waa guri caadi ah oo hool oo dhisan oo marxawadii oo mukayifkii buurtii wax yarba ka sii hadhay oo loogu talagalay calaamado laakiin buuro maaha qarfa oo qof soconayo taas waxa laga yaabaa marka qofku xajka kala tago buurta Carafa iyo meelaha Musdalifa waa buuro caadi qarfa ah laakiin xagan way ka duwan tahay Khalid way inta badan dadkii wadanka bay ka imanayaan diyaarad bay soo raacayaan dadka diyaaradaha soo raacayo kale halkee bay kasoo bilaabayaan inay labadan go'aan xidhaan oo ay kasoo niyeystaan umradina kasoo xidhaan waxa fiican qofku markuu gurigiisa ka soo xidhan haddana transit ku soo noqonayn wadan kale waxa fiican inuu gurigiisa ka soo xidho hadduu direct u imanayo malaha dharka cad dumarka iyagu dharkooda kumanay laakiin ragga labada gooy cad wuxuu ka soo xidhanaya amba wadanku transitka ku yahay amba wuxuu ku soo xidhan karaa diyaaradda dhexdeeda inta badan diyaaradda dhexdeedana waad aragteen musqusheeda aad bay u yartay waxa laga yaabaa inay ku adkaato inuu xidho marka waxa inta badan fiican inuu qofku ka soo xidho wadanka oo transit ku yahay hadduu toos u imanayno gurigiisa ka soo xidho saas fiican way marka magaalada Jidda inta la soo gaarin baa ayaa la niyeysanayaa qofku miiqaadka inta la soo gaarin Jidda ma miiqaadku 4 meelood nabigu sheegay markuu la sinan yahay daaqamka diyaaradda sheegaba oo nin qofkii muctamirka ahaa 30 daqiiqo ama 20 daqiiqo inooga hadhay meeshii miiqaadka marka qofku diyaar garoobaya niyadii inama biniyad kadibna uu ku dhawaaqay labbayk allahumma bi'umri ornaya way Sheekh Ahmed waxa jirta shirkado ay Soomaalidu leedahay adiga dabcan aad qayb ka tahay oo loogu talagalay amaba dadka Soomaalida ah ama xajka imanaya ama umrada imanayaba ka caawiya bal idinka laftarkiinu maadaama aad qayb ka tahay waliba dadka culimada ah ee dalkan ku sugan Soomaalidana inta badan kala qayb gala umrada iyo xajkada waxyaabaha aad u qabataan dadka Soomaalida ah ee meesha fog uga imanaya umrada maxaa kamid ah waliba gaar ahaan shirkadiina Khalid waa aad biyada maasanta anaga shirkadeeda waxa la yiraahdaa shirkada Al-Amaana la yiraahdaa fikradana waxay nagu dhalatay 2 sano ka hor gaar ahaan markii dadkan fiisaha reer galbeedka fiisaha loo furay aadka u fudud ee qofku uu online ka goosanayo waxaan dareemay baahi weyn oo dadku ay u qabaan qof dadkii acmaash tusa qofkii markuu umradii soo goostay oo tigirkii si fudud ku helay waxa suurtagal noqon weyday qofkii inuu acmaashii la hore u imanay makiin madiinadii buu maqlay laakiin uu iman acmaash waxaan aragnay baahi weyn inay ka jirto qofkii markuu maka imanayo inuu ku helo qof meeshii ku soo dhaweeyo oo waxaan service kan bixinaa waxa kamid ah qofkii airport kala ugu imanaya oo laga soo qaadaya waxa loo sii booking gareynaya loo qabanaya meeshii uu degi lahaa loo diyaarinaya kadib markuu meeshii la keeno qofkii acmaash baa laga saxaya acmaash baa la gelaya umradii baa laga saxaya kadibna wixii kale uga baahdo meelo badan baa jira oo la soo daawado oo qofku soo eego buurtii Jabal Thawr iyo qaar xira iyo Jabal Rahma meelahaas oo dhan waa la soo tusaa kadibna qofkii hadduu Madiino u baahdo Madiinana laftigeeda waxa jooga dhalinyaro saas kale waan ku xidhnaa markuu u baahdo in uu noqdona saas si laga waanu celinaa marka oo airport wax hadii la geeyaa service kuna casan marka uu qabana waxa kale service-ka fiican inta ama soo kordhin kamid ahaa sanadadii ugu dambeeyay qofka hadii mesela qof ehelkiisa uu rabo in loo umreeyo oo umra looga sameeyo isagoo xagiisa iska jooga waa loo sameeyaa sidoo kale xajkana waa loo sameeyaa marka qofkii xitaa waa la raacayo ilaa kabcadi baa lagu wareegayaa waa caadi baa loo raacayaa nacam si caadi loo sameeyaa si caadi ah qofkii ducadii la akhrinayay iyo tilmaamayo dhan loo siinaya nacam qaabkii saxda ahaa ee sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugnaatay ee qofkii loo marinaya oo ool waa laga saxaya acmaash marka waxyaabaha lagu garanayo in salahan kale maqaam Ibrahim oo kale dadku maxay ku garanayaan markay bilaabayaan maaragtay inay ku wareegaan bilaabaya qofku markuu bilaabayo Kacbada yimaado waxa calaamado waxa ku xidhan leedar baa ku xidhan xagiisa inta badan bidixda ayuu ka qabanayaa Kacbadu kadib calaamadaha leedka ee buluug ee loogu talagalay ayuu حجر أساس أنت بدن ضدك وأركي يا بدك وقعنت تاجي بسم الله الله أكبر لي مركز سيدا سكوك ركرا قف أبدا ما هذا